ilmaha magac ma loo bixin karaa iyo walqal haddii uu uurka ku geeriyoodo isla su'aal kale oo taa u dhow ayaa iyaduna waxay horay u tiri waddankan aan joogno wanqal ama walqal ama caqiiqa ma la samayn karaa iyadoo ay nagu adag tahay inaannu anagu neefkii aanu ka samayn lahayn aanu gacanta iyada ku helno oo marka aanu gowracno laakiin la heli karo neefkii oo dhammaystiran horayse loo soo gowracay oo diyaara markaa sidaas ma samayn karnaa mise shardi waxaa jira oranaya waa in neefkii aad adigu markaasi gowracdaa ood bisinka u qabsataa su-aasha iyada ah aan ku bilaabo labadaas su'aalood sheekh maxamed rashaad falyatafadal ma sheekh Umar Faaruq warajina su-aasha xaqiiqada ku saabsan awalan marka hore ilmuhu haday ka wanmaan oo ay dhashaan siqdi ay ku dhashaan waa uu magac bixinayaa waalidkii dhalay laakiin magaca uu siinaya haddii aanu ku caddayn wiil iyo gabar midna haddaanu ku caddayn magac wiil iyo gabarba aadan karo ayuu siinaya sida magacyada ay ka mid yihiin Talha iyo Zaynab iyo wixii la mid ah kaas waa xagga magac bixinta weey xagga caqiiqada samaynteeda caqiiqada marka la samaynayo ilmaha neefku waa inuu shuruudul caqiiqa marka hore buuxiyo ama waqlasha buuxiyo habbuuxiya neefka shuruud waxa kamid inuu gees jabnayna kamid inaanu caata ahayna kamid inaanu neef jiisa ahayna kamid wixii shuruudii udxiyada loo fiirin jiray ayaa loo fiirinay masalada kale ee ah ma lagu magacaabaya haddana anagu sidee baan yeelaynaa laba midkood waa inay ku dhacdo way qof inuu u wakiishaa way bannaan tahay qofkaas soo gowracaya marka hadduu wakaaladii ku soo gowraco caqiiqatu fulaan Allahu akbar caqiiqatu fulaan oo yiraahdo sidaa ku magacaabo way ansaxaysa haddii kale asagu waa inuu soo qashaa wabillahi tawfiiq wixii dheeraadana wadaadkii fiqiga joogan u wareejinayna asagan sheekhu wax ma dhaafin su'aasha waxay ahayd ilmihii caloosha ku dhinta macnaa hada kuma soo bixin ba nolol calooshu ku dhintay isagoo nool ma dhalan isagoo nool ma dhalan ee isagoo meyd abuu dhintay magac bixin ma leeyahay neef qalidna ma leeyahay aljawaab culammadu way isku khilaafeen sidaa sheekh maxamed rashaad qaar waxay leeyahay hadduuba kawinmay ilmo noqday waa leeyahay labaduba magaca loo bixina haddii aan markaa la garanayn wuxuu yahay la hadduuba dhasho isagoo ilmo kaamil ah miduu yahay waa la gartay qaar waxay leeyihiin marka hadduuba kawinmo ilmo nool noqday oo caloosha ku kawinmay naf ayuusan la bixin la soo dhalanin ee waa leeyahay jamhuuri waxay qabtaa mar hadduu meydnimo ku dhashay waxba magac bixin iyo janaaza ku tukad iyo neefka qad inuusan lahayn masalataa khilaafiye wey ama midaan kale oo innaga duruufteenaan meeshaan neef in la qaloo la gowraco la soo gadaa nooma sahlana taasi niyaaba in lagu sameeyo siduu sheekha u sheegay oo dadaad aaminsan tahay ama alla ka baqaya ama adiga arrimahaaga kuu fulinaya inaad u wakiilato xoogaagii kharajka ahaana xawishoo dirtid oo tidhaahid war ilmahaasaa dhashay wiil baa dhashay laba neef ari qasha kharajkiina waa ka marka waxay ka mid tahay cibaadaadka ilaa xaqiiqadu waa sunna min sunani lislaam cibaadaadka tawkiil ama wakaalasho lagu fulin kara ayay ka mid tahay marka qof aad aaminsantaho alla ka baqaaya inaad xoogaagii kharajkaa u xawishi tacaaliimna siisii tidhaahid war laba neef qasha wiil baa dhashay ama neef ari a qasha oo ceebka salinoo suu sheekhu u tilmaamaya gabar baa dhalatay waxba kuma jabna wabilaahi towfiiq sheekh maxamed falyatafadal مسألة قيبتها ظهر الشيخ عمر وسيد أصلا نقليي وارهن ومسألة خلافية لكن علماء محدثين تأه واحد ترجيحيان رأيك جمهورك وحين كنت ترجيحيان هذه النبي محوها هذه النبي محوها عليه أفضل الصلاة والتسليم سيد علمه أووغا وها ويالي مركي علمه تضبا مع الموجران ayuu magacana u bixin jiray oo u bixiyay caqiiqadana
markay 7 jireen buu ka bireeyey calayhi afdalu salaatu watasliim kolka madhabkaas oon arkay ibn cuthaymiin iyo ibn baaz iyo wagayruhu min alculamaa inay tarjiixinayaan ayaa ila muuqatay inuu wallahu aclam xaqa ilaahay baa og inuu raajix yahay oo ah ilmuhu hadduu ka horeeyo maalinta 7aad inaan loona caqiiqaynaynin magacna loo bixinaynin hadduuse ka dambeeyo maalinta 7aad in loo caqiiqaynayo magacna loo bixinayo hadday dhacdo maalinta 7aad ka hor in laba sameeyana falaa xaraja in sha allahu tacaala shaaficiyadu ay qabto weeye soomaalidana sidaan ugu jawaabay taa weeye kutubta shaaficiga oo dhanna sidaasaa ku qoran siqdiga inaanu janaaso lahayn laakiin magaca loo bixinayo oo qofkii dhalay ilmahaas magaca uu bixinay sidaasaa ku qoran tarjiixeeda wallahu aclam qolada meeshay doonto ayay ijtihaadi ahaan ula aadaysaa laakiin waa sidaa weeye wallahu aclam جزاه الله خيرا سؤال اللحاد شيخ سائل كان يقول لي هي سؤال شناد سائل كان يقول لي شيخ حاسكيغا وكيل ما إيغا نقون كرتا وانقلك عرور تيدا إيادا سيانونا نقين ما قبان كرتا هوشاس مقعنا ما أوبحين كرتا إلمها إيادا هناك قادنا ودور مسألو يسدحق اللي سائلكو سؤال شكوبات xaaskiisa ma u wakiilan karaa inay ilmaha ka wanqasho su-aasha jawaabteedu waa haa maxaa yeelay wanqalku wuxuu ka mid yahay cibaadaadka maaliga ee maxdiga ah cibaadaadka dhowr nooca mid waa cibaadaad dhaqaale ku saabsan midna waa cibaadaad jidhka laga rabo midna waa cibaadaad dhaqaalihii iyo jidhkiiba isugu tegayaan cibaadaadka marka maaliga ah ee dhaqaalaha ku saabsan wakiil in la isaga noqon karo ruuxu cid kale u diri karo waa la isla ogolyahay marka inaad tidhaahdo ama xaaskaaga ama cid kale wakiilatoo tidhaahdo ilmahayga ka wanqal way kuu bannaanta taasi waa mid dhanka labaad wax weeyaan axaadiista nebiga hadday iyadoon laba socodsiininba odaygii ay ilmihii ka wanqasho isagu ma wakiilaninba ayadaaba isaga tilaabsatay ilmaha wanqalkiisii ma ansaxaya jawaabtu waa maxaa yeelay axaadiista wanqalka ka hadlaysa marka la fiiriyo intaan arkay kuma jiro hal xadiid oo shardi ka dhigaya inuu aabbuhu uu wanqalka sameeyo bal axaadiista badankeed waxay tilmaamaysaa in cid waliba wanqalka ka samayn karto algulaamu murtahanun bicaqiiqati yudbax waa laga gowrici can ilghulaami shaataani ya saasuu xadiidku leeyahay wa can iljaariyati shaatun wiilka laba neef baa laga rabaa gabadha 2 neef baa laga rabaa marka yudbax yaa ka gowracaya ilaa wa ilaaba aabbuha ka gowraco shardi lagama dhigin saas daraaddeed hadday hooyadu ka gowracdo laa maanica leanna muhimmaddu wax weeyaan ilmahan in neef laga qalo ama aabbuhu ha ka qalo ama hooyadu ha ka qasho hadday su-aashu timaado la yidhahdo yay waajib ku tahay haddii timaado aabbahay waajib ku tahay laakiin hadday cid kale ka samayso hooyadu samayso ama cid kale ama adeerkii sameeyo ama walaalkii ka wanqalo laa ba's wax diidahaya ma jiro sharcan taasina waa dhankaas waay oo wax mushkilo ah ma ay lahaa hooyadu waa ka wanqali kartaa xataa haddii la yidhaahdo aabbaha iska lahaa tasarrufu alfuduuli bay noqonaysa tasarrufu alfuduuliguna waa wuxuu mutawaqif ku yahay idanka ciddii xaqan iska lahay tasarrufka fuduuliga waxa weeyaan shay aadan xaq u lahayn oon laguu idmin oo ciddii xaqan lahayd ayna kuu idmin inaad isaga tasarrufto hadhow hadduu raalli ku noqdo tasarrufkaaga dhib male sida xadiidkii curwat albaariqi uu tilmaamayay wallahu aclam shayga la yidhahdo walqasha sharcigana ama luqada carabigana caqiiqa lagu idhaahdo sida culimada islaamku ay u badan yihiin waa sunne mu-akada oo muhiima weeye nebiguna samayn jiray sala allahu calayhi wasalam haddii qofku wakhtigaa ilmuhu u dhashay aanu waxba haynin laguma laha haddii iyada oo uu waxayo uu ilaawo ama ka jaahil ahaayo marka dambe loo sheego ama uu ka mashquulo wuu qallayn karaa
oo wakhti dambe wuu la iman karaa haddii waalidku la iman waayana qofku naftiisaba wuu ka walqali karaa intaba way sheegeen culimmadu nebiguna salى اllahu عalayه wasalam waxa uu leeyahy algulaamu murtahanu bicaqiiqati tudbaxu canhu yowma saabicih waladka waxaa loo haystaa walqashiisu u rahmaya iyadoo laga gowracayo maalinka toddobaad marka dhalmadiisii laga soo tiriyo dhalashadiisii marka haddii carruurtaada aanaad hore ugu walqalinood xoolo lahayd imikaba waad u laqali kartaa ama mar uga dhig ama kala dhaadheeree aabbaha un baana lagu leeyay qofka ubadka mas-uulka ka ah ee hooyada laguma leh waxaan ahay aabbo dhalay 9 ilmood oo caruura midkoodna uma wanqalin oo markaa duruuf iyo dhaqaaluhu iima saamaxaynin haddaan rabaa inaan u wanqalee ma hal mar baan sameeyaa mise midba gaar baan u sameeyaa masalada tiradu wax xukun oo gaar oo ku xiran ma jiro hal ilmuun noqon karaa 10na waa noqon karaan waana u dhexayn karaan waana ka badan karaan wanqalku waqti buu leeyahay waalidka aabbaha waxaa mas-uuliyad ka saaran tahay ilaa ilmuhu uu qaan gaadho isagaa lagu leeyahay wanqalka samayntiisa intaanu qaan gaadhin markii hore ama duruuf ha uga tagto ama kasba ha uga tagee uu samayn karaa waxaana loo samaynun sidii loo samayn lahaa markii ay wakhtigeedii joogtay sidii loo samayn lahaabaa loo samayn wanqalkuna de waa sunno ee waajib ma aha asalkiisana waxaa guda neef adhi ah ama wiil ha noqdaan ama gabadh ha noqoto waxaa fiican wiilasha 2 neef oo adhiga in laga dhigo axkaamta inta badan wanqalku wuxuu la wadaagaa udxiyada iyo carafada xoolaha la gowraco shardiga iyo da'da iyo tilmaamaha iyo ceebaha markii la eego iyo inta wadaagi kartaba qofka haddaan sheegnay gabdho hadday yihiin 7 hal neef oo geela ama hal neef oo lo ah kaga filan sida caqiiqada sida udxiyadaba ay ugu filayd hadday wiilal yihiin oo sunnadii dhammaystireed samaynayana 3 wiil iyo hal gabadh ay ku filan tahay oo 2 neef oo ari ah haddayba 9 yihiin 2 neef oo geela kaga filan oo 14 uba dhigmaba hadday 14kii qaybna weli gabdho yihiin 2 neef oo geelana kaga filan 2 ari ana kaga filan wixii wiilala yahay hal mid gabdhaha hal marna wuu samayn karaa marar kala duwanna waa samayn karaa haddii ilmuhu ay qaan gaadhaan ama qaarkood qaan gaadh noqdo iyagay mas-uuliyaddii ku wareegaysaa wanqalka inay iska sameeyaan waayo wanqalku axkaam iyaga la xiriidhay ahayd iyagiina dad mukallaf oo hadda axkaamtooda milkiyey wey hadduu rabo waalid ama qof kale inuu wanqal ka sameeyo markay qaan gaadhaan kadib idankooda iyo ogolaanshahoodu u baahan yahay si uu waayo baabul wakaala wey niyaabo iyo wakiilnimaad kaga gowracaysaa markuu qofkan ilmaha iyo wilaayo mar hadduu qaan gaadho wilaaye kuma leh waalidku biidnihi buu walaaye iyo wakiil kaga noqon karaa markii tasarufaadka noocana la yidhaahdo saa darteed ilmihii hadday qaan gaadhaan ama qaarkood wanqalka waalidku wuxuu kaga samayn karaa ama cid kalea ka samayn karta biidnihim inay u idnaan wakaalada iyo inuu ka naa'ib noqdo maadaama xaqii xaggooda u wareegay wabilahi towfiiq